magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar maanta waxa ka dhacay barnaamijyo ballaaran oo ay sameeyeen bulshada magaalada Caynaba taas oo ay ku taageerayeen khudbadii taariikhiga ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya uga furmay dalka Djibouti dadweynaha reer Caynaba ee barnaamijyada waxa ay socodluga ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada Caynaba kuwaas oo sitay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntii bulshada magaalada Caynaba ee barnaamijyay ayaa waxa isugu soo biyashubteen fagaaraha qayriyada ee magaalada Caynaba waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay salaadiin uqaal waxgarad xildhibaano siyaasiyiin aqoon-yahano haween waxayna dhamaantoodba taageero u muujiyeen wafdiga hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee ka qayb galay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya annagoo ah bulshooyinka gobolka Saraar dhammaanteed degmada Caynaba isugu soo baxday waxaanu maanta shucuurtayada iyo farxadayada aanu halkan isugu soo baxnay inaanu taageero waftigii ballaadna uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee ka qayb galay shirkii Djibouti waxaanu taageersanahay mowqifkii ay ka qaateen golaha iyo guushay ka soo hooyeen bismillaahi raxmaani raxiim maanta dadweynaha gobolka Saraar waxay halkan isugu soo baxeen inay muujiyaan taageeradooda iyo mowqifka ay ka taagan yihiin go'aansataaga Soomaaliland Soomaaliland annagu haddii aanu nahay gobolka Saraar waxaanu la qabnaa oo la midaysannahay madaxda qaranka ee aanu dooranay inuu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi go'aankay ka qaateen Soomaaliya ayaana annaguna ka qaadanay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ha noolaado waxaanu ku taageernay mowqifkeeda iska taagay beesha caalamka qaramada midoobay oo yuuga midowga Yurub wadani madashada Caynaba isugu soo baxday ee lagu taageerayo taageeradii waftigeennii Djibouti tagay madaxweynuhu hogaaminayay lagu taageerayo haddana xisbi waddan waa la qabnaa waanu taageersanahay waxaanu ku taageersanahay iska celinta madaxweynaha iyo waftigu hogaaminaya ay iskaga celiyeen jiddarrada ay ula timi Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha jirto ha joogto waxaanu taageersanahay waftiga uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wafdigiisa ballaaran anigoo sultaankii gobolka Saraar madax dhaqameedka ugu sarreeyay aan ahay waxaanu ka taageersanahay halka kan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shirkii uu ka qayb galay waxaanu halkan ka muujinaynaa taageerada aanu taageersanahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi anigoo aqalkaariya dirirgeedo gobolka Saraar ka hadlaya waxaan taageersanahay wafdidii aan u soo diranay Djibouti sidii mugalaha iyo baaxadda ay uga hadleen dantii Soomaaliya iyo Soomaaliland ayagu waxaan leenahay kuwa la soo doortay ma ahayn annagu kuwa aan soo diranay kuwa farta ku dooranay ahay أنا كون الله أفكار هواك قبل كسران متعذرنا قطبي مدحوينه وكتيري Djibouti إسرائيل وفد الناس عتيبة وانو سلامنا وماليا مدونينو مربنا وانو كرباني لبد دولة بانو نهاي دولة الصومال اللي هنا قاضي وهي أبوان كي عاون ترى ما سد اللي ينشر الدولي هذا انتقلنا ها بري دمنا براري Soomaaliya haddana bariga khaldamay maanta waanu soo jeednaa dib aynu ku khaldami mayno go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid aan wada taageersanahay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gaashaanada dhexe aadan Cabdi Cawaale Qushi iyo mas'uuliyiin kale waxayna shacabka reer Caynaba uga mahadnaqeen sida mugay miisaan kale ay ugu soo baxeen taageerada madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mabda uu ka qaatay dalka Djibouti markuu tagay Soomaaliland jiritaankeedu inay tahay muqadas ayaynu goobtan isugu soo baxnay inagoo muujinayna inaynu la igtanahay oo la mowqifnahay oo ka sii darannahay weliba sida uu sheegay madaxweynuhu inaynu ka sii darannahay inagoo muujinayna ayaynu goobtan isugu soo baxnay
waxaanu leedahay beesha caalamka waxaanu taageersannahay hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mowqifkii uu iska taagay hadalkii qarmaajo ayaanu taageersannahay boqolkiiba boqol baanu taageersannahay maanta waxaynu isugu soo baxnay inaynu taageerno khudbaddii madaxweynaha ee uu ka jeediyey jabuuti isaga iyo wafdigii uu hogaaminayey ayaynu halkan ku taageeraynaa somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato madaxweynaheenna jamhuuriyadda somalilan go'aankii uu qaatay ee fiicnaa baynu taageersannahay sidaasoo maaha somalilan ha noolaato allahu akbar salebaan cilmi siciid salebaan kiiko wararka eryel t v magaalada caynaba gobolka saraar shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga iidahab